kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waxa ugu waaweyn xiisadii Mareykanka iyo Iran oo darsatay iyo taliyaha ciidanka qarabka sida Iran ninkii bedelay Qaasim Suleymani oo amar ka buuxasiyay ciidankiisa isla markaana sheegay inay rusheynayaan gantaalaha waaweyn iyo wuxuu yiri maraakiibta xambaarsan ee Mareykanku leeyahay reer galbeedka mar kale waxay hoosta ka xariiqeen awoodda iyo bandhiga military ee dalka Turkiga uu ka soobiyay Liibiya iyagoo amaanay hubka iyo gantaalaha cusub ee dalkaasi halkaasi geeyay kuwaas ay ku tilmaameen awood buuxda oo Turkigu yeeshay midowga Yurub waxa ay hanjabaad u direen Israa'iil markii ugu horeysay iyagoo aan u kala hadhin marakan talaabo ay qaadayso Israa'iil inay ka soo wada horjeesan doonaan qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal sidoo kalena waa falanqayn xooggan oo ku saabsan doorka warbaahinta wariyaasha iyo waliba waddanka Soomaaliya sirdoonada iyo waliba sidoo kale basaasnimada la sheego maxaa ka jira arrimahaas oo dhan ayaa daawada shaqeemaha leh falanqayn xooggan ku maqli doontaan waa 24 bishii Abriil waa kowda Ramadaan kulanti wanaagsan daawada qiimaha leh waa maalin jimcaha qaybtii koobaad dhamaan meel kasta joogtaan Ramadaan Kariim waana horfadhi media wararka gudoomiye wacala dhinaca diblomaasiyadda qaybta koobaad daawadayaal ku bilaabay markaan ugu horeysiiyay ayadoo ninka madaxda ka ah dalkaasi ama sida dadban u laayliya dalkaasi Saudi Arabia wali ay dhagaha caalamka ka sii qaylinayso dilkii uu geystay ee uu ku lug yeeshay Jamal Khashoggi ayaa hadda waxa la sheegay in haweeney iyaduna u dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqul insaanka uu ugu hanjabay in uu nafta dhaafi doono taasoo ku sugan dalka Britain sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Britain waxa la sheegay in gabadh la yiraahdo Aliya Abu Taya la sheegay in loo soo hanjabay oo loo sheegay in loo dili doono qaabkii loo dilay Jamal Khashoggi tan ayaa kadib markii gabadhaasi ay bilowday olole ay ugu doodayso qoyskeeda ama reerka ay ka dhalatay Al-Wahtiya la yiraahdo kaasoo la sheegay in deegaan ku yaala magaalo ku taala badda cas loogu talagalay oo lagu dhawaaqay in laga dhisayo wax loogu sheegay magaalo casri ah oo dhinaca tiknoolajiyada waxay sheegtay iyadoo la hadlaysay BBC-da ayay tiri waan ku imaan karnaa London ayaana lagu dili ayay tiri waxaana noqon doontaa mid loo dilo sidii lagu falay Mr. Jamal Khashoggi ma waxay kula tahay in aad naga baxsan kartid ayaa leeyahay wixii ku dhacay Jamal Khashoggi ayaa kugu dhici doona ayaa loo sheegay cali arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo khilaaf uu ka taagan yahay ama ka kala dhex taagan yahay xukuumadda Saudi Arabia iyo qoys la yiraahdo Huwaiti kuwaas oo la sheegay in ay isku khilaafsan yihiin deegaan badda cas ku yaala oo magaalo ah oo dadkaasi reer guraaga ay degaan oo la sheegay in laga dhisayo markaasi magaalo casri ah goorsii horeysay mid kamid ah dadkaasi u dhaqdhaqaaqa oo la oran jiray Cabdulrahiim Al-Huwaiti ayaa waxa uu muuqaal u soo duubay ku sheegay 13 bishan in la doonayo in dhulkooda xoog laga qaato qoyskooda isagoo sheegay in mashruuca lagu magacaabo NOM uu yahay mid khatar badan oo dadka markaasi barakicinaya in yar kadib ninkaasi waa la dilay isla markaana waxa la sheegay in ay rasaas dhaafsadeen ciidamada booliiska sida ay sheegayso dawladdu laakiin waxa uu marka uu hadlayay uu sheegay in laga yaabo in la shirqoolo isagoo sheegay in laga yaabo in hub iyo dambi inta dusha laga saaro isagana halkaasi lagu dilo halkaan nagala socotaan daawadayaal wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada ku qodobtaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda Faransiiska qodobada daawasha qiimaha leh warar waaweyn iyo xogo kala duwan ayaa inoo soo socday xanuunka coronavirus ma faafaha daran ee dunida halakeenaya ayaa isaguna u muuqda mid markaasi marba ka sii dambaysa ka sii daraya wararkii ugu dambeeyay xanuunka ayaa waxa uu u muuqda in uu san jirin ka soo rayn marka la eego dalal uu kamid yahay dalka Mareykanka markaas la eego dalalkii hore ee xanuunka u hogaaminayay sida Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa la sheegaya in hoos u dhac uu ku yimid dhimashada dadka laakiin Talyaaniga ayaa wali laga digaya in soo daadashada dadku ay halkeedii tahay wararku waxay sheegayaan in sidoo kale iyadoo ay jirto in dhaqaale darro xooggan ay xanuunka ka dhalatay haddana ay jiraan dad dhaqaale ka sameeyay ninka adduunka ugu dhaqaalaha badan ee shirkadda dhinaca online wax lagu kala gatay Amazon la yiraahdo asaasay ninka la yiraahdo Jeff Bezos ayaa la sheegay inuu lacagtii ugu badneyd abid ka sameeyay baa la yiri baraha online-ka uu alaabta ku kala gado sidoo kale shirkadda Tesla la yiraahdo dhinaca gaadiidka milkiilahooda Elon Musk ayaa isaguna kamid ah dadka 10% ay korodhay lacagtooda sida uu sheegayo maxadka daraasaadka cilmi baarista dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Mareykanka ee The Institute for Policy Studies la yiraahdo IBS warbixin ay soo saartay oo ku eegtay sanadkan iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay xanuunka iyo dhaqaale kobaca ayay ku tilmaameen in ay shirkadahaasi u muuqdaan kuwo iyagu guuleystay ama ka faa'iiday iyagoo la sheegayo in ay taasi keentay baa la leeyahay kor u kaca dhaqaalaha tan waxay ku soo beegmaysaa ayadoo sidoo kale shaqooyinka dalka Mareykanka hoos dhici ugu weyn abid ay soo saareen soo gaadhay ama ay soo wajahday
ku dhawaad 26 milyan oo ruux oo Mareykan ayaa laga baqayaa in ay shaqooyinkooda waayeen sida ay wararku sheegayaan. Mareykanka ayaa hogaaminaya dhimashada iyo soo ridashada xanuunka iyadoo ku dhawaad 50,000 oo qof ay geeridu marayso halka 800,000 ay la gashay markaasi dhinaca dadka xanuunka soo ritay 50,000 ku dhawaad ay tahay dadka geeriyooday. Daawadayaasha qiimaha leh qaybta wararka waxaan dhinaca dulasiyada farkama qodnee daawadayaal ku soo dhawaada horta qayb kamid ah falanqaynta koobaad waxaan ku eegi doonaa insha Allah ma ku faaqidi doonaa warbaahinta iyo wariyaha dhowr jeer ayaan barnaamijkaas ballan qaadnay dad badan way naga codsadeen runtii inaynu fiirino bal heerka warbaahineed iyo heerka wariyanimo ee maanta Soomaalidu taagan tahay iyo sidoo kale bal waxyaalaha muhiimka ama asaasiga u ah in la is xasuusiyo mihnadaas iyo waxyaalaha ay xambaarsan tahay waxa u taagan tahay qiyaam ahaan waxyaalaha ay tahay la ilaaliyo waxyaalaha mudan in runtii laga hadal iyo waxyaalaha sida loo hadlo sida loo weeleeyo iyo sida loo ilaaliyo waxyaalo badan oo ay kamid tahay anshaxa iyo dhaqanka qiyamka dabcan diinta afka iyo hidaha waxyaalaha ay kamid tahay dhexdhexaadnimada iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo waxa loo yaqaan markaasi shuruucda dhinaca dabcan ama waxyaalaha ay u taagan tahay mihnadan ethics ka kamid yihiin shuruucda warbaahintan iyo habdhaqanka ay tahay in loo maamulo marka horeysa warbaahintu daawadayaasha qiimaha leh waxay soo martay marxalado aad iyo aad u kala duwan adduunka oo dhan hadeertana ama qarnigan hadeerta lagu jiro bilowday 2000 marka la eego taariikhda milaadigana waxa loo yaqaan qarniga warbaahinta ayaa loo yaqaan waxaana qarniga warbaahinta loola jeeday macnaheedu maaha qarniga wariyaal badan imaalahaayeen macnaheedu taas lagama wadin dadkii magaca bixiyay waxay ka wadeen waxa loo yaqaan warbaahin qalabka warbaahinta ayaa marka horeysa mihnad ujeedka ugu weyn laga lahaa oo ahaa oo qalab badan oo warbaahin inta boolka laga qaadi doono ay kamid tahay tiknoolajiyada maanta fududaatay sahashay in aynu ku wada xiriirno bartaas YouTube-ka ku wada xiriirno Facebook aynu ku wada xiriirno Twitter lagu wada xiriiro telefoon ay casriyowdo oo qof ku jira 15 mayl ama 15 kilomitir inuu kula joogo kale saas oo kale ayaa laga hadlayay marka qarni la sameeyo doono ama la dareesay oo daha laga rogi doono aqoon badan oo ku saabsan dhinaca tiknoolajiyada iyo qalabka warbaahinta ayaa ujeedkeedu ahaa kullina waa ku jirtay iyadana in wariyaal ay soo badanayaan warbaahinta iyo warfaafintuna ay xoogeysanayso haddaba marka aynu si guud u fiirino warbaahintan ugu waaweyn ee caalamka sida weyn looga yaqaano oo warbaahinta reer galbeed dalka ugu warbaahinta badan ama warbaahintiisu ugu awood badan tahay oo dalka Mareykanka dalka labaad soo raacaan oo dalka Britain iyo dalka Mareykanka marka waxay ku kala duwan yihiin inta badan warbaahinta dalka Mareykanka ugu xoog weyn ama tudharoon dawladdu shaqo kuma laha wax lagu kuma laha sida TV-ga CNN ka kale Fox News warbaahinta oo kamid yahay CBS ay kamid tahay MSNBC Washington Post New York Times Bloomberg media ay kamid tahay warbaahinta noocaas oo kala AP iyo AFP oo iyadana Faransiiska laga leeyahay warbaahinta noocaas oo kala inta badan dawladuhu ma laha laakiin bedelkeeda iyadoo Britain ay ama dalka UK ay warbaahin badan ka jirta laakiin tan ugu tudharoon oo BBC warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maamusha waa sida wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ay VOA iyaduna maamusha marka horta labada shirkadood ee waaweyn oo inaga Soomaali ahaan lagu inagu leh BBC qayb afka Soomaaliga ah baa jirta af Soomaaliga ku hadasha VOA qayb af Soomaaliga ku hadasha jirta labadaas horta waxaa maamula labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee labada dal ama labada dal ee baa kala maamula lacagta iyo shaqaalahaasna waxay ka tirsan yihiin waa shaqaale dawladda Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska oo kala shaqeeya ama ha noqdeen kuwa afka Maxaariga ku hadla ama ha noqdeen kuwa Carabi ku hadla ama ha noqdeen kuwa ku hadla dabcan Ingiriisiga iyo luqadaha kale ee adduunka oo dhan ku kala baxaan ku kala baahan ujeedooyinka laga lahaana waa ujeedooyin afkaaro kulli gaar ah weeye oo runtii yeesan barnaamijkeena mar rabo inuu inooga muuqdo inaan warbaahin aynu يعني برتمتسانو لكن فهمك جود وحوي ودل شيء أو بحيي دقالة كبحيي إن دلال كله لقد دو وربهم كهذا الشو ده طبري أو ريال يكوا يجو طبعا كوالفايدا جي ماشة أو طبعا وركسو تبينيا مركب وجدك معناها تفاصيل بدن uma baahna ujeedooyin waxay kala yihiin siyaasadeed waxay kala yihiin ujeedooyin dhaqan waxay kala yihiin ujeedooyin mabaadi waxay kala yihiin wax badan oo in badan ay ka gaareen baa jira oo aad iyo aad in badan uga gaareen oo raad inagu yeeshay inagana inagu yeeshay dawladaha kale oo dhan ay la simannahay wax marka inaga inoo gaara taas ma marka warbaahinta hadda tusaale ahaan marka laga hadlayo marka qodobkan ugu horreysanayo waxa weeye qodobka dhexdhexaadnimada warbaahinta qodobka warbaahintu ma tahay warbaahin dhexdhexaad warbaahinta adduunka oo dhan waxa la isku raacsan yahay inay dhexdhexaad ahay
oo ay jirto warbaahintaas cid ay u quminayso waa marka koobaade warbaahinta wadanka laga leeyahay iyo mabaadi'da ay ku socoto intaba dhaxdhaxaad kama ah marka aad daawato barnaamijyada waaweyn ee doodaha ah marka aad daawato barnaamij wariye gaar ah iska leeyahay waxaad wariyahaas ka dhex arkaysaa dalkiisa waxaad ka dhex arkaysaa dhaqankiisa waxaad ka dhex arkaysaa yacni qiyamkiisa uu aaminsan yahay marka TV-ga si aanku kala daawanayso intaas barnaamij ka baxa oo wariyaal caan ay leeyihiin xataa iska daa wax kale wariye kasta waxaad ka dhex arkaysaa midig iyo bidix wuxuu yahay inkastoo si aanka tusaalahan waa dadka liberalka ah ee yacni ay liberalnimadu madax martay oo kale oo dhinaca bidixda u janjeera waxaad arkaysaa wariyaha uu ka sii dhinaca bidixda ka sii xigo afkaartiisa iyo sidoo mar walba uga dhex muujinayo meesha ayaad arkaysaa oo waana wax sax ah inuu deesaa sameeyo qofka oo runtii uu qiyamkiisa hadii kale qofka qiimkiisa lumaya oo qofka waxa lumaya dadnimadiisa oo kale marka warbaahintu dhaxdhaxaadnimada marka laga hadlayo waa weyn waxa ugu weyn ama factorka ugu weyn lagu qiimeeyaa waa maxay waxa lagu qiimeeyaa waxa weeye warbaahintu dalka ay ku taalo seebay uga hadasha dhaxdhaxaadnimada laga rabaa waxa weeye bulshada adigu aad afkooda ku hadlayso bulshada aad ka tirsan tahay in aad siyaasiyiintooda deegaamadooda dadkooda iyo haday kala duwan yihiin dhaqamadooda aad dhaxdhaxaad u ahaato laakiin taa micnaheedu maaha in aad dalkaaga iyo dadkaaga aad dhaxdhaxaad uga noqoto dal kale Ethiopia oo kale Israa'iil oo kale يعني Mareykan oo kale tusaalahan Uganda oo kale saas oo kale macna marka wariyaha Mareykanka ahi dhaxdhaxaad uma noqon karo Uganda iyo Mareykan markuu ka warramay hadii ay arrimo waaweyn u jiraan warka iyo newska meesha ku jira muhiimadda ah macluumaadka ugu muhiimsan waa la bixinayaa oo wariyuhu sheegaya Uganda iyo Mareykan dhaxmaray laakiin waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo dawladda Mareykanku ay kaga khaldan tahay tusaalahan ay kaga khaldan tahay Uganda in uusan wariyahaasi ku tigaalin oo uusan soo faagin oo uusan sameeynin ilaa ay arrin ama shirkadeed ama arrin ganacsi ama arrin kale si kale ah ay tahay ama arrin ujeedooyin laga leeyahay dad gaar ah tusaalahan waad aragtay warbixino la soo faago oo dib laga soo faago la yiraahdo waagaas dawladda Mareykanku halka khalad bay ka geystay warbaahin reer galbeed oo mararka qaar kood yiraahdo laakiin mar walba waxa ogaataa inta la sheegay inta la qariyay ayaa tuma jibaar ka badan waxaan laga yaabaa ujeedada warbixinta loo soo faagay marka dambe 40 sano kadib ama 50 sano kadib in loogu tala galay in aan warbixintii iyo arrintii oo kale dad kale aysan ka faa'iideysan oo dadkii iska walaha qadiyada oo aysan wixii soo wada saareen saas kale laga hadlay marka warbaahintu mar walba dalkeeda iyo qiyamka dalkeeda markay timaado waa ay ilaalisaa waxaana ilaalisaa oo kale dhaqanka ay u taagan tahay qof bili aadan oo aan dhaqan lahayn ma jiro nooc doona ha ahaado ma xumaado ama wanaagsanaado qof bili aadan oo wax aaminsaneen adoo doono shaydaan ha aaminsanaade ma jiro waxaasuna mar walba u taagay qofkaas oo ilaalinaya daawadeel qodobka ugu dambeeya ee warbixinta ku saabsan arrintanna daawadeesha qiimaha leh dalka Faransiiska wargeyskiisa caanka Le Monde ayaa waxaa lagu qoray maqaal ay iska kaashadeen khubarada reer galbeedka ee dalalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska ee dhinaca militariga iyo arrimaha siyaasadda adduunka indha iyagoo markaasi warbixin ay u soo saaray maxadka arrimaha caalamiga ah iyo amniga ee Jarmalka leedahay German Institute for International Affairs and Security ee magaalada Berlin ku yaala madaxooda guud maqaal oo ku markaasi farayareystay isla markaana oo la kaashaday khubaro Faransiis ayaa waxa loo ogeysiyay ama loo sheegay dawladaha Faransiiska iyo dalka Jarmalka inay aqbalaan awoodda dalka Turkiga waxa la yiri isku dheelitirkii ayay meesha ka saareen military ee ka jiri jiray ee marba irogo aan ku rogtay ahaa la yiri ee dalka Liibiya dawladda dalkaasi waxa la yiri Turkiga waxaana si guud u caawiyeen oo ay u ruqa qaadeen dawladda the government of national account ama dawladda heshiis qaran ee GNA la yiraahdo dalkaasi Liibiya waxayna la soo banbaxeen laba shay oo yaab leh mid waxa la yiri waa diyaaradaha aan cid wadin ee drones-ka la yiraahdo kuwaas oo hawada dalkaasi cararaya isla markaana cagta marinaya baa la yiri maleeshiyaadka kooxda iyo ciidanka Jananka markii hore awoodda badnaa hadeertase awoodiisii la bujiyay ee General Khalifa Haftar iyo sidoo kale waxa la yiri gantaalo kale oo aan horey loo ogeyn oo hadeerto loogaday Turkigu inuu ku rakabay halkaas oo ah gantaalo difaac kuwaas oo waxa la yiri magaalooyinka Tripoli iyo magaalada Misrata labadaba ka cawriyay isla markaana ka wiideeyay baa la yiri diyaaradaha dagaalka dalka isku tagay Imaaraadka Carabta halkaas gobiyaali jiray haatan waxa la yiri gabi ahaanba dalkaasi wuxuu eegay mid lagu kala adkaaday ayaa lagu yiri qaraarka iyo qoraalka ay labada si nin soo saareen madaxa guud ee maxadka daraasaadka cilmi baarista arrimaha dibadda iyo amniga oo la yiraahdo Wolfram Lacher ayaa wuxuu yiri way iska caddahay in meesha uu ka jiro awood sheegasho iyo in ay la timid ama la soo banbaxday dawladda dalkaasi
qalab diyaaradaha liishaama iyo diyaaradahan cidi wadin oo dhammaantood ka soo baxay gudaha dalka Turkiga taasi maxay cadeynaysaa in ay tahay wiil Ankara awoodda dalka Liibiya hadeerto ugu tutudharoon waxay taas sidoo kale ay noo sheegaysaa ayuu yiri in ka adkaanta laga adkaaday imaaraadka iyo xulufadiisa ay muujinayso sida loogu kala adkaaday siyaasadda caalamka islaam ayaa lagu yiri haatan reer galbeedka waxa lagu la taliyay wargeyska Limande ayaa lagu qoray maqaalka ay qoreen nimankaasi khibrada ah waxa lagu la taliyay reer galbeedku in ay dib u shaandheeyaan siyaasadoodii kakneed ee briyihii ugu dambeysay oo dhan laba wajiilnimada ahayd ee ku aadanay dalka Turkiga isla markaana Turkiga la afkarto taas waxa loola jeedaa hadalku wuxuu u dhacayaa Turkigu waa dal awood leh aqbala daawadaasha qiimaha leh qaybta labaad ee wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda iyo falanqaynta